Toddobaadkani midowga musharaxiinta ayaa soo saaray digniin ku aadan habsami u socodka doorashada oo ay ku sheegeen mid u muuqata boob. Qoraalkii ugu dambeeyay ee midowga musharaxiinta ayay uga hadleen boobka doorashooyinka, waxaana dhici karta inuu noqdo mid horudhac u ah nooc cusub oo hardan oo mar kale uu dalka dagaal lugaha la galo. Lahjadda qoraalka ayaa ka muhiimsan qoraalka laftigiisa, waxa ayna si cad u sheegeen in aysan aqbali doonin waxa ay ku sifeeyeen boob qaaban. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah tiirarka uu ku taagan yahay midowga musharaxiinta ayaa baggiisa Facebook ku soo qoray faahfaahin ku aadan nooca go'aan ee midowga qaateen. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa socda ku koobay laba kelmadood oo ah ama idoorta ama doorasho la'aan. Kheyladhaanta boobka doorashada ma aha mid ku kooban oo keliya midowga musharaxiinta, sidoo kale waxaa jira mas'uuliyiin caan ah oo mucaaradka ka mid ahayn kuwaas oo sheegay in loo diiday xitaa in ay ka qayb galaan doorashada dalka ka socota. Professor Maxamed Jawaari oo loo diiday in uu isku soo sharaxo xilka uu isaga ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay asiga oo aan ka mid ahayn kooxaha mucaaradka. Qoraalka midowga musharaxiinta waxaa ku jiray hadal u muuqday ka tashiga aayaha iyo masiirka dalka, hadalka oo u dhignaa sida tan: markastana anaga waxaan u duurxulaynaa midka danta dalka iyo dadka ay ku jirto oo sida ugu fiyoobida badan ugu dhibka yar oo qaranka iyo dawladnimada iyo arrimaha masiirka dalkaba ugu fiican inaan ka fikirno. Arrintaas oo dadka u fasirteen siyaabo kala duwan. Fariinta midowga musharaxiinta ee lagu soo koobay wax ka yar 100 eray